haatana ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf. sanadihii ugu dambeeyay adeegyada dadweynaha intooda badan waxaa bixinaya shirkado gaar loo leeyahay kadib markii ay burbureen adeegyadii dawladda ama ay awoodoodii yaraatay. shirkadahan gaarka ah waxaa lagu ammaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan, waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose ka sakow dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira. shirkadahaasi waxaa ka mid ah kuwa bixiya adeegyada korontada. magaalada Muqdisho oo kale tusaale ahaan waxaa ka jira ugu yaraan 3 shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada, kuwaasi oo kala ah Banaadir Electric Company ama Beko, Muqdisho Power Supply Company iyo Blue Sky, kuwaasi oo tartanka ka dhaxeeya uu sababay inay ka faa'iideystaan dadweynaha oo hela koronto qiimo jaban. Injineer Maxamuud Faarax Cali waa farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda korontada ee Beko. korontada shirkadaha magaalada Muqdisho 2014 wixii ka horeeyay halka kilowatt hour bimacnaa Soomaali kilowatt hour ka halka unit waxaa dadka laga siin jiray $20 waa la soo jabiyay 79 waa la soo jabiyay 65 48 waa la soo jabiyay 36 ba hadda maximum ka dadka qaar ku qaataan waa dadka 36 cents dadka ugu hooseeyana waxay ku qaataan 25 cents waa marka la joogo magaalada Muqdisho. haddii Soomaaliya oo dhan la isku daro magaalada Muqdisho ugu koronto jaban horumarka la gaaray magaalada Muqdisho misaal soo qaadanaya 2014 hal line oo high aan u mari jirin hadda magaalada oo dhan line high maray waxaan uga jeedaa 12,000 voltage iyo meelaha qaar ko 3,000 voltage hal solar ma oolin hadda solarka yala 10 megawatt magaalada waa ka badan yahay. laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxaa garab socday eedo loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xilli aanay jirin sharciyaha ama lagula xisaabtamo haddii ay shaqadooda waxyeello ka timaado. waxyeelada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxaa ka mid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado, dababkaas oo ay ku baaba'aan hanti, mararka qaarkoodna ay naf ku baxdo. dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxaa ka mid ah Maxamed Nuur Warsame. waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13 Juulaay 2012. gurigiisu waxa uu ku yaalaa xaafadda Siinaa ee magaalada Muqdisho. waxaan ku noolaan guriga qoys 7 caruur ah iyo hooyo aaban ku yahay intaan ilaahay uu ugu badbaadiyay waxaan abeeratay oo naf ah oo meesha oo khasaaraha kama dhalan hadii laga reebo hantida iyo guriga ahaanta. dabku muxuu ka bilowday ma la baaray oo si cilmiyeysan loo baaray? waa dabku waa la baaray cadeynay leedahay dhaawacyo leedahay guriga ima ayna waxa la lahaay boortagaas guri dhagax ah boortagaasna aan cilada guriga uu gurtay waxa ka timid waa korontada qarax ay sameysay iyo dhankooda madal xoog badan soo daamaan hal mar naagta bac iyo fiyoonka bac isla wada dheen iyo holi sidaas ku bilaabay guriga. shirkadda siisa korontada gurigaaga magaceed? shirkadda Beko. iyagu ma yimaadeen dabku markuu dhacay kadib? way yimaadeen maamulka iyo dad maamul baranjiga ka tirsaneen laanta ka tirsaneen oo lacag kanaga qaaday subaxii soo gaareen laakiin markood shirka oo dhacaayo dad waxaa jiro u shaqeeyo oo deegaanka ah xaafad walba laan walba deegaan walba ku shaqo leh dadkii dhibaatada marka hore dhacdo hortagay bil marka dacwo maasida amba u tacabasho u tagtay customer ahaan ugu qancinayo qaladka aniga ma ahaan qaladku waa adiga mafahant bareesa saqadan oo isticmaasha bareesa fiira qaadan geliisa qodahay dadka xubinaan meesha ka dhacay dhibaatooyinana meesha ka dhacay. Maxamed Nuur Warsame waxa uu ka mid yahay 4 qof oo ka mid ah dadka guryahooda ay gubteen oo la hadlay galka baaristu, kuwaas oo dhammaantood ay gubashada guryahooda la xiriirinayaan korontada soo gasha. waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisu uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah. dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Nuur Maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gudbay guri dariskiisa ah oo gubtay. gurigiisu waxa uu ka samaysan yahay jiingad waxaana uu ku yaalaa xaafadda Xamar Jajab. guri dariska ayaa aniga gubay oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay kaas aniga dabka uu kacay kaas dabka isoo gudbiyay. gurigaaga maxaa soo gaaray? gurigayga dadka dhulkood oo noqday uu gubtay. maxaa sababaa la yiri dabka ma la baaray? wallahi aniga waxa la yiraahdaa gurigaasi koronto ka kacday saasoo gurigaaga ku gubtay saasaa la ii sheegay. shirkadii korontadu arrintan ma soo faragelisay ma la baaray
waxaa cilada korontada keenay waa u tagnay waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedaan tagnay aniga kuma gubinay tiri waxaa ku gubay guriga dariskaaga ahaa ku gubay tiri ilaaha ka weynaan dhaha iska daayo taladeeda allah saarto galka baaristu waxa uu la xiriiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay kuwaasi oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysiga aan u gudbiyey hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragti duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas-uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas-uul ka yihiin korontada gubtay guryahooda meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha waxay sheegayaan in dabka ka dhasha korontada aysan shirkadaha korontadu mas-uul ka ahayn sidee ayay haddaba taasi ku dhici kartaa su-aashaasi waxaan hordhigay injineer maxamuud faarax cali farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda beko isagu waxa uu eedda saarayaa dhinacyo kale dabka waxaa sababa laba shay in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay anigu koonfurta Soomaaliya jooga waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractor siiyo guriga oo injineerkaasina wiilal yaryar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin fiilo ku xiriya yaqaana waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan 3 phase ama u baahan fiilo 16 mm ama u baahan waa millimeter square fiilo wax lagu cabiro weeye ama 25 u baahan inay fiilo 4 geliyaan ama mid 2 ay geliyaan guriga markii la tago ee korontadii lagu soo daayo in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa uu ahaa fiiladu markaa way kululaataa siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca waxaa laga yaabaa dabkaa kacay guryaha safiita loo sameeyaa safiitada sare yaa fiiladu martaa iyada oo free wire bimacna kalima iyada oo aan dadnayn guri kasta oo xamar laga dhiso inta anagu ka warhayo saas u badan yahay fiiladii free wire iyadoo ah yay meeshii maraysaa way kululaatay way gubatay dab baa ka kacay safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa marka root cause wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa waxa uu ka dhaxeeyaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keenaa fiilo saxa ma keenaan intay China keenaan iyo qiimaha si ay u dhimaan iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan boqolaal waxaan aragnay macaamiil oo intay fiilo soo gateen markay korontada ku sii daayeen hadhowta fiiladii markii la arkayba ay noqotay ciid caadi ay noqotay nimankaasi fiilo saxa ma keenaan takadicin kuma jeegaraysan nin waliba isagaa la soo dego maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid controlsha jirin nin waliba wixiisa la soo degaa marka shirkadaha korontadu ma waxaad leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha wax mas-uuliyadana kuma leh korontadan ka kacaysa guryaha shirkadaha korontada guryaha dadka korontada uma geliyaane dadku iyagaa korontadooda gashada sirada ugu jirta war looma hayo aniga practical waxay ugu dhacday inaan guri jiraa soo degay oo aan damacday in air condition shito korontada markiiba iga dantay banaankaan tegay circuit breakerka ama bahalka furaha u yaqaanaan baan fiiriyey gebigiis waxay taa air conditionka kaliya buu qaadi karin su-aashaada mar labaad aan ku noqday dadku guryaha korontada iyagaa gashada shirkaduhu uma geliyaan hal arrin Soomaalida aan ka jahil bixiyo guud ahaan dad waxay yiraahdaan gurigayga koronta gubtay dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta waxaa laga yaabaa 1,000 qoys inay fiilada isaga u timaado inay la isticmaalayaan 1,000 qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan 1,000 qoys hadday wada gubteen oo ay guryahoodu mar wada gubteen waa sax shirkadaha gurigaa gubay laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay waa wax gurigiisa ku khaasa standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya furaha wixii ka horeeya wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiilada meesha wixii guriga dhexdiisa ah haddii carruur yaryar ay ku ciyaarto haddii shirkada 2 fiilo laysa saaro hadduu qofka intuu bakaaraha tagay uu fiilo bareeso soo gateen gebigeedaba aan qaadi karin hal ambeer qaadi karin oo ay feero ku xidheen khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacdaa guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ahi guriga korontada iyagumana gelinin wax ka socdana war uma hayaan markii guriga korontada lagu sii daayey ee ontii horeysa la sameeyey hadduu gurigu guban lahaa discussion baa laga geli lahaa guriga 2 sannadood 3 sannadood 4 sannadood aad deganay oo aad korontada ku isticmaalaysay koronta iga gubtay haddayba runtahay koronta gubtay
dee korontada adigaad cilad aad la timid ciladu korontada intay soo socotay kuma imaanine action aad adigu qaaday iyo ficil aad qaaday yuu dabku ku kacay. dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada. galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir, kuwaasi oo diiwaan geliyey 190 dab, waxaana 149 dab oo u dhiganta 78% sababay koronto. injineer maxamuud faarax cali ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa in dabka ka kaca magaalada muqdisho 78% ay korontadu sababto. waa marka la tix raaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir. si yaroo simbalaan ku macnaynaya, waxaan ku macnaynayaa farsamo xumo. waxaan ku macnayn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay, dadkii korontada geliyey, dadkii design gareeyey, haddaba design gareysay cilada halkaasay ka timi. waxaana ku proof garaynaya oo ku caddaynaya arrintaa ma jiro. hadday la arki lahaa dadka xaafad kasta way joogaan, bal ha fiiriyaan wadda meel fiilo wadda maraysa oo intay say u holocasay ama u gubanaysa intay guri gashay gurigii gubtay haddii la keeno dadweynaha waxa ay ku doodayaan waa sax. dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa, ilaa farsamo xumada la saxana dabkaas uu soconaya. laakiin su-aasha la isweydiin kara waxay tahay haddii injineer ahaan aad og tihiin fiilooyinkan guryaha la geliyay inay saa daciif u yihiin, tayadu saa u liidato, dadka guriga iskale miyaan la dhihi karin ilaa fiilo oo tayala aad soo gashato koronto ma gelinayni miyaan la dhihi karin? waa very good question. waxaad moodaa inaad xamar la joogto. horta for your information, fiilooyinka qaarna derbiga ku malaasan yihiin oo waxaa meesha kasoo jeeda spreeso keliya kasoo jeeda. 2 qaarna guriga korkiisa maraan safiita kasoo jeeda. qofka markaad guriga u dhisto banaanka waxaad ugu imaanaysaa bahal panel meesha ku dhegan iyo circuit breaker meesha yaalla, korontada iyo xig. war guriga yaa korontada geliya waa saxsanta korontada iyo xig. haddii se alifkii wax qaldama albaqruu tagaa. haddii uusan jirin regulation waxaan lagu kala fiirfiirinayo, shirkaduhu ma qaban karaan shaqadii ay dadka oo dhan ka dhaxaysay. shirkadu ma qaban karto. waa wax soomaalida oo dhan ka wada maqan, waa wax inaga wada maqan. jamaal cali deeriye waxa uu ka mid yahay maamulayaasha waaxda dabdamiska ee shirkadda hormood. shirkaddu waxay bixisaa adeeg tabaruc ah oo loogu gurmado guryaha iyo goobaha kale ee dab ku qabsado, waxaana ay soo shaqaynayeen ilaa 2006, inkastoo si rasmi ah adeegaasi u howlgalay 2011. jamaal cali deeriye madaxa dabdamiska ee shirkadda hormood waxa macluumaadka uu haya ay muujinayaan in korontadu ay tahay tan ugu badan ee sababta u ah dabka ka kacaya guryaha. tusaale ahaan sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2020 shirkadda hormood waxay diiwaan gelisay 135 dab, sanadkii kasii horeeyeyna 87 dab. sanadkii koowaad ee aan dabka rekoorgarintiisa ama qoridiisa aan bilownay ee 2006 ahayd waxaan qornay 6 dab oo keliya. sanadkii 2018 maraan warbixinayn waxaan qornay 127 dab, laakiin sanadkii 2020 waxaan dabinay 135 dab ayaan dabinay oo magaalada muqdisho, afgooye, caalasha intaas ah. marka su-aashaydu waxay tahay 135 dab ee 2020 iyo 87 2019 imisa koronta ay sababtay, imisa waxyaabo kala sababeen? horta ma kala saarin Haaruun, kalama saarin dabkii iyo korontadii. haddana ma ku fadhiyo computerka ay ku qoraayeen, laakiin waxaa badan inta lagu soo rekoorgareeyey korontada. imisa qof baad diiwaan geliseen oo dhimasho ah intii aad hawshan ku jirtay adiga intaad aragta un? aniga intii aan ogaa oo dad dhintay aan dab ugu tagnay waa ilaa 11 qofood bay ahaayeen. jamaal cali deeriye waxa uu isagu aaminsan yahay fikradda ah in dabku uu ka dhasho guryaha dhexdooda, ayna qayb ahaan sabab u yihiin dadka oo isticmaala fiilooyin daciif ah. anagu intii aan dabka dabinaynay ilaa 2011 ilaa hadda aan ku jirno 2020 ah, koronto fiilo korkeeda maraysa, guri korkiisa maraysa koronto intii ay go'day korka uga yimid dabkii anigu ma arkin weli. waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aanan arag weli koronto kor ka timid ee gurigii kor ka gubtay. dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa. shirkadaha anigu marka waxaan dhiirigelin ka siin lahaa inay marka ay soo gelinayaan guryaha korontada ay weli uga harin inay ku keenaan iyagu alaab ay hubaan oo ama fiilooyin xoog leh ay hubaan inay guriga soo geliyaan, laakiin ay sii raadiyaan guriga korontada lagu soo isticmaalayo. marka waxaa dhib ka dhankeena gudaha guriga dhexdiisa ama meesha ay isticmaalayaan ayaa fiilooyin jilicsan isticmaasha. galka baaristu waxa uu la xiriiray 2 ka tirsan ganacsatada soo dejisa fiilooyinka korontada oo lagu eedeynayo inay waddanka keenaan fiilooyin qiimo jaban, tayadooduna ay liidato. waxayna ii sheegeen xubnahaasi inaysan wax waraysi ah bixinayn.
injineer maxamuud faarax cali waxa uu dadweynaha u soo jeedinayaa tallaabooyin muhiim ah oo ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen inay koronto ka kacdo guryahooda. waa marka koowaada horta khatar guriga kugula nool inay tahay ogow oo iska ilaali. 1 2 dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina lacag fara badan baad gelinaysaa yeysan idinka gubanina qof yaqaana u dirsada oo korontada ha idiin geliyo. 3 waalidiinta carruurta haysta waxaan kula talinayaa bareesooyinka midna laba af bay leedahay wax la geliyay midna 3 bay leedahay. tan 3 midda sare ilaa qori ama lagu qabto ama bir lagu qabto labada kale wax lama gelin kara hadday guryihiina ku jiraan tan labadani carruurtiina ka bedelaysa idinkaga dhimanina. 4 dadka guryaha bacweynayaasha degan waxaan kula talinayaa inta badan waxaa laydin xidhaa bahashan labada god leh iska daaya taasoo tan 3 la xidha. waxaanad kale ku dadaashaan alwaaxa bahasha marka lagu dhajiyo waxaa laga yaabaa alwaaxa gadaashiisa tiiradiioo iska banaan inay taagan tahay iska hubiya. xitaa haddaadan hadeerta hubin gurigaaga u waco qof wax yaqaan korontada yaqaan oo xadmada iga hubi. weliba shaqaalaha beeko qofkii tiri soo waca ee naga soo waca ee yidhahda war guriga iga hubiya waa ka hubinaynaa. inkastoo dunida si weyn looga ammaano shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyada ay bixiyaanna ay ka heer sarreeyaan kuwa dawladdu waddo, haddana waxaan looga maarmin dawladda sharci dejin iyo xisaabtan, taasi oo inta badan ah mas-uuliyadda ay dawladdu leedahay xilliganna maqan, sida uu ku doodayo injineer axmed abshir faarax oo farsamada korontada ku bartay dalka Maraykanka kana soo shaqeeyey wakaaladii xoogga korontada ee Soomaaliya. shuruuc ma jiro hadda waddankan oo dawlad dhexe oo policy waxaan u samaysay energy sector-ka ma jiro. steedyada naftigoodu weli policy xoog leh wax macnaheed ma jiraan. shirkaduhu waa geliyaan koronto iyo waa siiyaan haddii wax mas-uuliyad ay ka dhacdo ama accident ka dhacana badanaaba kuwaana waan ka warhayo mas-uuliyadda waa qaadaan oo waxbay bixiyaan si haddii ama dad ku dhinto ama dad wax ku yaalaan. laakiin waxyaalaha meesha ka maqan hadda saan anigu aan dareemay arkay waxaan jirin sharciyadii regulationkii ma jiro policyga ma jiro waxaa ma jiraan hadda lagula xisaabtami lahaa shirkadahaas private-ka yani roolkii dawladda baa ka maqan ama ha noqoto national ama ha noqoto state. maxaad ku talin lahayd in la sameeyo hadday tahay maamulada kala duwan iyo shirkadahanba iyo dadka macaamiisha laftigooda? mar walbaba waa inay joogtaa heedad dawladeed oo waxaan ka dambeeya oo la xisaabtamaya una sameeya policy iyo regulation ay ku shaqeeyaan dadka una dhiiba shirkadaha iyo kuwan guryaha gelinaya iyo guryaha kuwa naftooda korontooyinka bixinaya oo qolo walba ay taqaan shaqadeeda iyo mas-uuliyadeeda iyo wixii bere ka yimaada inay igu qaadayaan iyo qolada qaadaysa la kala yaqaan waxba waxaas waxa laga rabaa dawladdu inay dhigto ama state ha noqoto ama national ha noqoto. galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dawladda Soomaaliya oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.